qaar ka mid ah qurba-joogta Soomaaliland ee xagaagan soo gaadhay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay horumarka ay dalka ugu yimaadeen. waxayna qurba-joogtani sheegeen markii ay soo gaadheen dalka ugu yimaadeen horumar taabanaya dhinacyo badan. magacaygu waa Shams Cali Faarax waxaan ka imid dalka Sweden magaalada Shopping baan ka imid waxaan u imi inaan dalka arko iyo qorshaha wanaagsan ee ka soconaya dhulka sidaynu moodayna maaha ku soo dhawaada waa dhul qabow waa dhul wanaagsan waa dhul nabadgelyo ah habeenkii 11 kan xagga iska maraa xaafadda October barxalad oo kale 11 habeenimo ka soo lugeeyay anigoo keligay aan qofna garanaynin waxa laale wax yeelay ma jirto shandadahayga iyo kumatigayga waxayga oo dhan sita Cabdillah Usman Jiqraal ee gudoomiye jaalada Majlisaanahay 3 sano baan ka maqnaa dalka markaan airportka Hargeysa ka soo digay aad iyo aad baan u farxay waxa qabadka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladdiisu ay ka qabatay dalka xagga dhismaha xagga wadooyinka waxaan aad iyo aad ugu farxo markaan ay loobi karayn farxadda Soomaaliland ku arkay nabadgelyada caafimaadka waxbarashada mid walba markaas ay eegto Soomaaliland maanta heerkay mariso weligeed may gaadhin waxa leeyahay Cabdiraxmaan aw Xuseen Axmed Dube waxaan ka imi wadanka Austria daara aad u dhaadheer hudheelo aad u qurux badan dhulkii oo qaali noqday sidoo kale qurba-joogtana waxay ka warameen soonta Ramadaan ay ku qaadanayaan markan dalka gudihiisa waxa u dhaxeeya iyada iyo tii ay qurbaha ku gudan jireen soonti xagga aad iyo aad bay soonku dadka muslimka saacadaha ku dhaadheer waa Ramadaan horta baraka ku jirta laakiin de waqtigiiba ku dheer oo afarta habeenimo suxuuranaya halkana koob 10 iyo barka halkan masaacadeeno kale iyagana koob 10 la furaya marka saacadeena koob 10 tahay ay xagga laga furaya halkan ku qaatay aad iyo aad bay u qabowdahay inaan Soomaaliya ma moodayo ma moogtay mid kale bulshada aan badan ka maqnaa anigoo waqtigaaba igu yaraanaya moogtay waxa Ramadaanta ayaan baan yeelata wax yar saacado yar yeelan noqotayba aad iyo aad baan Ramadaanta u qabowdahay dhulkaygii baan nimi waqtiguna uu yar yahay eedaankii baad maqlaysaa lagu toosinayaa suxuurtii dabadna hadhowtana saacada marka abaal hurdo markiiba waa la eedaamaya hadal maqribkii marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wadanka aan joogno waa wadan imika kuleelihii lagu jiro maxalligii xagaaga waxa aan soonaa muddo dhowr iyo 20 saacadooda oo aan matalan suxuurta oo kale ka bilaabno 2 habeenimo afartuna ay noo noqoto 9 iyo barka habeenimo ee halkan aan joogno marka waa muddada inta leeg oo dadka ma taqaanaayay wax yar ayay wax cunayaan ama tukanayaan waqti baan haysan wadanta waqtigu aad buu fara badan yahay oo xagga markaan ka hadlayo xoog buu fara badan yahay marka waqtiga faraha badan ayay waxay igu kaliftay inaan waqtigan imaado oo dhulkan soonkayga ku qaato bacdaba saacadu yar yihiin qurba-joogga Soomaaliland ayaa sanadkan ama xagaagan aad loo dareemayaa imaanshigooda inkastoo kuwa kale oo aad u jecel inay yimaadaan dalka duruufo xidheen inay Ramadaantana ku qaataan sanadkan gudaha dalka farxad weyn ayay wahayd Cabdi Maalig Muuse Coldoon telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Burco.